madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta kulan sagootina la qaatay ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Ambassador Katrina Line oo laga bedelay shaqadii hore ay u haysay ee qaramada midoobay. Madaxweynaha qaranka Somaliland ayaa uga mahadnaqay Ambassador Line muddadii ay soo wada shaqeeyeen iyo hawlihii muhiimka ah ee u dhexeeyay qaramada midoobay iyo jamhuuriyadda Somaliland ee qabsoomay muddadii ay shaqada gacanta ku haysay. dhinaceedana ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa madaxweynaha uga mahadnaqday sidii wanaagsanayd ay xukuumaddiisu ula shaqaysay muddadii ay xilka haysay iyo sidii xilkasnimada lahayd ee ay u soo wada shaqeeyeen muddadaasi. kulanka waxaa madaxweynaha ku wehelinaya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna kusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Marwe Rooda Jaamac Cilmi. dhinaca waftigana waxaa ku wehelinaya ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay mas'uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay Nicolina Rogathrof oo madaxa xafiiska Hargeysa, Katrina Brooks, Axmed Qalinle, Mustafa Khayre iyo Maxamed Daahir. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa.